dumarku waa masalada haweeneyda intaan ka hadlay haddana si khaldan u qaateen xali cabdiraxmaan ay weydiinayay waxaa weeye caruurta iyo dumarku iyo caamadu marka laga hadlayo colaad iyo nabad silmi iyo xarbi wuxuu ku xidhan yahay maamulka iyo dowladda iyo taliska sunnada nebi maxamed sidaasay ahayd reer taa'if iyo reer thaqiif markay nabigu colaad qaateen iyo muslimiintu yaa colaadda qaatoo go'aamiyey madaxyaweyntii caamaduna marka xagga colaadda iyo nabadda masale waxaynu ka hadlaynaa aljihaad fii sabiili illah qadiya caskariya laga hadlaaya ha ila soo ordi masalo takfiir dabaalnimadkaada laba masalo isku baab ahayn haddaad keento caamada khawaarijta waxay sheegaan layma keeni karo caamo khawaarijo waxay garan jirin baad warkeeda ii keenaysaa oo waxay fahmayaan bajir ilaahay oo ayagu ru'uustooda u aafeeyey waa horaagtayda ahlulbidc bay ka ahaayeen haddana waa gaalo dhiigooda wuu bannaan yahay hadda goor baa idiin sheegay maxaa yeelay laba mas'aloon layslahayn laysma saaro ruuxu marba hadduu islaan muujisan hayo meel walba adduunka uu joogo waa muslim wax daar ku xidhan ama dowlad ku xidhan ama madaxweyne ku xidhan ma jiro man qaala laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah wa adhara alislaama gaalnimana aanan ku ogayn bixaddi daatihi tal abiibba hadduu fadhiyo waa muslim adduunka meesha ugu khatarsan maxay ahayd tal abiib ma ahayn mise waa los angeles iyo san francisco wey meesha ugu gaalsan hadduu joogo oo islaamnimo muujisanaya waa maxay waa muslim wax dowlad ku xidhan ama maamul ku xidhan ama madaxweyne ku xidhan ama bulsho badnaanteed ku xidhan ma aha akaru ahlilba hadday gaalnimo muujisan hayaan asaguna islaam muujisanaya muxuu yahay waa muslim waa masalatu ijmaacin waman khaalafa faqad kafar man yudhiru alislaam ولا تعلم به ناقضا من نواقض الإسلام الحكم له بالإسلام هو قطعي ومن نازع فقد كفر لذا مسألة لما خل طبعا جربان سو شرحي إذن كان مركم ديجا وكرنية بقول فدي كبدان باوشا كهل maxaa isu keenaya mas'ala jihaad iyo siyaasa askariya khusaysa iyo mas'ala khusaysa al-iimaan wal kufr marka dabaalada wararkooda leeyma keeni karo ninkii ii soo qadan asaga dabaala قد فهمتين برو ملايني ما كده يا بس واي عبد الرحمن وبجيده يسجد برو الله يا هذا دل سو ما جوجنو هدو تنزاني علاad qaadanay midka wax la weydiinaya barlamaan meeshan jooga iyo wasiirro iyo madaxweyne waa la tashan go'aan baa la qaadan waxaan maqli waxa dagaalamaya Kenya iyo Tanzania isku afuufahay waxa la idin weydiin ma jiro Uganda iyo Kenya waxay isku xumaayeen maxaa la idin weydiiyay Soomaaliya iyo Kenya isku xumaayeen maxaa la idin weydiiyay الحرب والسلم wuxuu ka go'aa madaxda yuu ka go'aa caamada iyo bulshaduna colaad iyo nabad waxay ku xukun tahay colaad iyo nabad kuma dhigin gaalnimo islaam kuma dhigin la socod colaad iyo nabad waxay ku xukun tahay dawladda nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo quraysh markay dagaalameen abu jahl iyo abu sufyaan iyo maqaawir nabiga wada hadlay macaamiha wada wax la weydiiyay qabaa'ilku hadda markay xisaabtamahayaan yaa hawsha u go'aamiya nabad iyo colaad malaaqiye iyo isme iyo nabadoonne iyo balbaad iyo balaayo waxay qaadatay yaa hawsha ka taliya caamaduna meesha bay ku rogmataa lagu laaya ama lagu daayaa waxaynu ka hadlayno waa asilmu wal harbu laakiin al islaam wal kufru wa masalada ku dhumeene idha kafarat ar-ra'iyya idha kafara ar-ra'i kafarat ar-ra'iyya ninka yiraahdo faqad kafar ninka yiraahdo haday dawladdu gaalowdo shacabkuna waa gaalo faqad kafara wa kharaja min al-milla al-islamiyya wa huwa ar-rajih min haythu ad-dalil khawarijtu wa kafara min ar-rajih min haythu ad-dalil wa huwa madhhab al-bukhari wa madhhab al-bukhari wa madhhab abi umamah al-bahili الصحابي الجليل ومذهب قاضي أبي بكر ابن العربي ومذهب السبكي ومذهب القرطبي وجماعة من الفقهاء وهو الذي أختاره وأدين الله به هذا أقول لي أنا هلني كما تجنادين كوح جوني أنت أكونه بأن تبقي لها نفر مداية أجي منك الشيء على اللي هذا الأمن القومي الديني بيختركوه الأمن القومي
الديني الأمن القومي السياسي الوطني ضد خطر كوا وذا شركة دينيدنا لبا كوحود با ugu daran waa khawaarijiyo iyo shiico nimanka Soomaaliya arag 10 ninka iga saaray war dabaalada soo guuriseen nimanka shiicada la yiraahdo Soomaaliya arag caaya Abu Bakar iyo Umar nabiga xalay uu soo lahaa fa in yutiu Abu Bakar wa Umar yarshudu qalaha 3 مرات يقول وقالوا ومنافقين وتوغو وكان عائشة أحب الناس إلى رسول الله بعاية لي وملعونة زانية بغية منافقة أهل النار كهيا هو النوع عاسى وحوي وإن لا ترتروي الشيعة خاصة قيسك الصومالية ونسكي إلالي صوفية المشركين إلهي غير كي عابد الشيعة النقدر لأنه هم مشركين شيعته نقصها يا خطر كلا تشبين أماليض واجد دم نسكول الله إنه سنة يشيعه سيد عربي وباباضي مشروع مجوسيا أو كفر أو إيران أي وضوه يي ربا إني الصوماليا كنت طلالان وين أبطيت قل لي أقولون وحالك هذا أوشا هرب هذا هي توبي كان مربضا أنا وروش قاعدان تبر ليه كل جود حتى مويدين شيعي متى كف قرط من قادلها بوندو وين جاك بوينت وين تادقته بان سؤال بس ويدين لها هل السؤال مركز سؤال ما يكجا جواب ما يا سؤال شيء كحرنتها عباها دي سؤال شيء كحرنتها قيب ما يلقى جواب جرا ما يهدو كيد هذا أو بكر محل كان من سنتهاي ما مؤمن با أهل الجنة أهل خير مسه أهل الجنة ماها ملحن قادرها أما قال لمن أدي لها إياه أمل للفساد وفتنته بقول مريا من برياني من بدان حمراني أصب لها عود سيدكم نيكو على الدعم يقولكم عود عقلة وصب بعد أن عرف تجي كل العقلة أصب لها يعني وحاس دتك اللي قمل قوي أحد مسلمين تكمده أو قبه روح إسلامي موجسان هيا أي دولة أي بلد أي ضل أي بقعة أي ميلو بدين الله راعينا يمشي ويا كاي روح هذو قال لما موجسان هيانا ميل الله مرة راعين كرو وبعد يورك سيلور راعينا نبي محمد بن مدينة كتلي عليه الصلاة والسلام قال شو إسلام لو حكومي واي يهودي يا نصارى دي جوكتي محلو حكومي قال لهم محايا قال لهم موجسان هيا صحابة مكة كنا ولا لما قال كتل سنتان لا فرنينه محل حكومي إسلام روح إسلام ما كم موقته أما قال لما كم موقته لما راعين كره الدولة يا حكومة يا بلد يا بقعة منا بقى لأنه هو معلوم الحال لكن مر كان كهل إنه هي السلم والحرب دقال كأنه دولة محاربة هي إنه دولة مسالمة هي وحكوا حرنت هاي maamulka jira go'aanku qaato bay ku xiran tahay marka laba sunno oo kala duwan ha isku khaldin caamadan waxay ku leeyihiin hadaba waa yahay ruuxas tulkiisa loo raacinaya ama qoomkiisa u raacinaysa ruux la yaqaan astaanti tolba lama raaciyaba waa daballo weey doqomo waa caran iyo dhaadhaan waa dhaafeen basawacyo weey ruuxu haduu astaan baleeyahay oo sumad leeyahay سمدي سبوا وحسين وعد الله راعي يد الله خير يا الله راعية أما قوم يا بلد يد الله راعية مجهول الحال صمد لاوي نين كان أستان قال لي أنا كم موقني مد إسلامنا كم موقني حقين راعينا بلد كوتشو ماشو بدين راعينا إلا مالك ما هي نهد روح حكم الآن ما هنكروا روحا وين حكم الله صاروا قولي لو مسلم أما اللي يجاهدوه وقال لا يجاهدوه هذو قال لهم موجز حان لنا هاي وادفي عنده ويكام مقطع هذا دورتي هذو إسلام موجزن هينا حان لنا هاي وادفي عنده هذا دورتي لكن لبضع الصمدات كيل لقوا ويا الراعية بلد يداري أغلبية يميل له بدين الراعية ولي مركو حكم كاقحد معه مركو رباريتان باكو هرية يا بحثي مركو مسائل كلا سكما خلدي كرو waxaan ku keenay wadaadan
maxay ku noqotay muxaariba weligeed maysan dagaalamaysa galbiya iska wadata agoon bay korsataa tolkeed baa wuxuu yahay yaa xarbi iyo dagaal nabiga kula jira waa xagga xarbiga silmiga caruurtu xooladu waa la qaniimaysan ilmaha caruurta gaalka xoolihiisa waa la qaniimaysan asaga lama dili karo markaan soo duulla caruurta xoolaheeda waa qaniimo haweenka xoolahoodu waa qaniimo midka xiniyaha waaweyn xoolihiisu waa qaniimo midna waa birtaa geydo oo waa ragga caruurta iyo maxastana waa birmageydaa la dili maayo laakiin xooluhu waa xalaalo waa qaniimo waxay ku bannaanaan bilkufri kufriga ay ku bannaan midna waa xaqiiqi fi xaqi الrijaali والnisaaءi الbaaliغaat iyo kufri hayri xaqiiqi ah oo caruurta iyo majaaniinta qaan gaadha iyagoo waalal oo tal ah masaa'ilka marka in sidaa loo fahmay u baahan tahay inaad ugu soo celisaan waxyaabahan waa hore nafta ka gooyey oo raadkay dib ugu celisaan ma yeeli karo toban jeer baan soo sheegay qaabka hadda kitaab baa xataa ku qoran tahay qadaaya kutub baan xataa ku qoray maqaalaad baan xataa ku qoray qowlu saa'ibka xataa ku qoran tahay meelayso ku qoran ma jiro masalada ah qadaaya alxarbi wasilmi in ay meesha aadayso fasaraynaa leylatan lama odhan karo cilaa ka dhaxaysa cillo kana waxaa la raaciy kan waxaa way waa nas mansuuso wey ana man adara alislaama fahuwa fi muslim fi ayi makaani wa fi ayi baladin wa masalatu ijmaacin lam yakhtalif fi ithnaani min almuslimiin ijmaaca ruuxi khilaafana bacda alcilmi bihi wa qiyaami alxujati calayh waxaan leenahay waa kaafir waaran qoray hawsha ayada ah nimankaana iyo inta lamidkaana 20 sano ku soo socota hawsha ayaa ka badan iyo 100 sano waa mucaanidiin mukaabiriin ah marka kafaro weeye min xayثu الراجح طيب هذه كله واهل البدع متهي ادون كان لك طهيرو اما مساله قضيه الحرب والسلم ان ماملك يطلس كحرين هاي سنه الرسول الله با لغا قادنيا لبا بيج كبدن waxa ku shaxay muqayyim kitabki zaad al-ma'ad ka akhriya wala kala baab كافر دار لما راعي معلوم الكفر مسلم معلوم الاسلام لما راعي دار يا بلد يا مال من لما راعي حكم dowladda hadday gaalowdo ama gaalnimo loo bato dadkoo dhan waa wada gaala diinta khawaarij weeye marka diimaha la iskuma qabto diimaha muslimiinta iyo diinta khawaarij kala ilaaliya